Inta badan dadka markay guryo cusub gadanayaan amaba dhisanayaan waxa uu qofku jecel yahay inuu noqdo guriga mid aad u qurux badan oo waasac ah. Balse waxaa jira dad iyaga doortay naqshado la yaab leh oo laga yaabo qaarkood inaysan maskaxdaadaba kusoo dhicin. Muuqaalkan waxaynu kusoo qaadan doonaa 10 ka mid ah guryaha ugu yaabka badan dunida, kuwaas oo qaarkood aadan rumaysan karin inay jiraan. Guriga kabaha. Milkiilaha gurigan oo lagu magacaabo Mahlone Hintes ayaa ah ganacsade leh shirkad iibisa isla markaana samaysa kabaha. Sidaa darteed ayaa si uu u xayeysiiyo wax soo saarka shirkadiisa ayuu doortay inuu gurigiisa u ekeysiiyo naqshad ahaan nooc ka mid ah kabaha shirkadiisa soo saarto. Waxa uuna ka kooban yahay 3 qol oo ah kuwa hurdada amaba jiifka loo yaqaano, 2 suuli, qol fadhi ah iyo sidoo kale jiko cuntada lagu karsado. Guriga eyga. Gurigan la yaabka leh waxa uu ku yaalaa tuulo yar oo dhacda gobolka Idaho ee dalka Mareykanka. Waxa uuna u samaysan yahay naqshad ahaan amaba u muuqaal eg yahay ey weyn oo kale. Qiimo ahaan gurigan waxaa lagu qiyaasayaa 1 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Waxaana dhisatay shirkad ka mid ah shirkadaha dhismaha ee dalka Mareykanka, iyadoo qofkii doonaya inuu seexdo hal habeen uu bixinayo lacag dhan $98. Waxaana inta badan seexda dadka safarka ah iyo dalxiisayaasha. Sanduuqa qashinka. Farsamayaqaan Mareykan ah oo lagu magacaabo Gregory Klein ayaa mid ka mid ah sanduuqyada qashinka lagu rido ee magaalada New York u beddelay guri yar. Waxaana gurigan dhex yaalla waxyaabaha asaasiga u ah nolosha, isagoo leh suuli, jiko iyo hal sariir. Waxaana farsamayaqaanka kaga baxay dhismaha gurigan lacag dhan $200 Mareykanka ah, isagoona seexda mar walba uu soo booqdo magaalada New York. Guriga qalloocan. Gurigan oo uu dhisay farsamayaqaanka reer Poland ee Santiski ayaa waxa uu ku yaalaa magaalada Sopot ee dalka Poland. Waxaana la dhisay gurigan intii u dhaxaysay sanadihii 2003 ilaa 2004. Bedka amaba baaxadda uu gurigan ku fadhiyo ayaa dhan 4,000 oo mitir oo iskuweer ah. Waana mid ka mid ah guryaha ugu yaabka badan dunida. Guriga gedisan amaba rogan. Inkastoo waayahan dambe laga dhisay guryo u qaab eg gurigan meelo badan oo caalamka ka mid ah, haddana gurigan waxa uu kaga duwan yahay guryaha kale ee isaga u qaabka eg in walxaha ku jira gurigan dhexdiisa sida sariiraha, kuraasta, miisaska iyo wax walba oo gurigan dhex yaal yihiin kuwa rogan amaba gedisan. Gurigan ma aha mid ku wanaagsan in lagu noolaado, balse ujeedada laga lahaa ee loo dhisay ayaa ah in loo soo dalxiis tago. Guriga webiga. Gurigan yar waxa uu awood u yeeshay inuu taagnaado in ka badan 45 sano. Waxa uuna ku dhex yaalaa webiga Drina ee waddanka Serbia. Inkastoo uu gurigan dhisnaa muddo dheer, haddana weli waa guri lagu noolaan karo. Waana mid ka mid ah goobaha ugu caansan waddanka Serbia ee loo soo dalxiis tago. Diyaaradda Boeing. Diyaaradda Boeing 727 ayuu Boris Campbell oo ah injineer hore waxa uu ka dhigtay guri, isaga oo degan ilaa sanadii 1999. Waxa uuna gurigan ku yaalaa magaalada Port Oregon ee waddanka Colombia. Waxa uuna gurigan ka kooban yahay qolalka hurdada, fadhiga, kushiin amaba jiko iyo sidoo kale suuli. Guriga dhagaxa. Gurigan oo ku dhex yaalla 2 dhagax oo waaweyn ayaa la dhisay sanadii 1974. Waxa uuna ku yaalaa waddanka Portugal. Waxaana loo dhisay qaab soo jiidasho leh oo la yaab leh, isagoo leh albaabyo iyo daaqado ka caagan rasaasta. Guriga afargeeska ah. Qofka aanan ku jirin gudaha gurigan waxaa ku adkaanaysa inuu fahmo qaab dhismeedka gurigan. Laakiin gurigan oo u dhisan qaab afargeesyo badan la isu geeyay ah ayaa gudaha ka ah guri caadi ah. Waxa uuna leeyahay wax walba oo guri looga baahan yahay. Waana guryo badan oo la isu geeyay. Waxa uuna ku yaalaa magaalada Rotterdam ee waddanka Holland. Guriga qaawan. Gurigan oo ku yaala waddanka Japan ayaa ka mid ah guryaha ugu yaabka badan caalamka. Waxaana intaasi u sii dheer adiga oo arki kara wax walba oo gudaha guriga ka dhacaya.
isagoo ka samaysan muraayado soo jiidanaya iftiinka, taasoo gurigan ka dhigtay mid qaawan. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.